wafdigani ka socda dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalkaasi Soomaaliya ayaa ka soo degay garoonka caalamiga ee Gradwell Wall ee magaalada Jigjiga waxaana si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare oo ay kamid ahayeen afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada dawladda deegaanka Soomaalida iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada deegaanka wafdigan ayaa ujeedada socdaalkoodu waxa ay ahayd sidii ay aqoon kororsi uga qaadan lahaayeen deegaanka Soomaalida Itoobiya ku saabsan nidaamka federalismka مسؤوليين nasasho kooban ku qaatay qolka martida gaarka ee garoonka caalamiga ee Gradwell Wall oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay maatinka wafdigani ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada dalkaasi Soomaaliya qaar ka tirsan isla mar ahaantaana waxa uu tilmaamay mudada aqoon kororsiga ay u joogaan deegaanka Soomaalida Itoobiya inay si walaaltinimo leh uga shaqeyn doonaan sida ay faham waxa uga siin lahaayeen wafdigan nidaam wanaagga federalismka iyo qaab shaqeedkiisa experience aan wax kulli qaab shaqeedino system ahaan isku imaano taasan bay hid kulli soo dhaweeya wafdigan isku dhafka oo hogaaminayay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Yaxya Cali Ibrahim oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya soo dhaweynta diiran ee walaaltinimo ee loo sameeyay isagoona sheegay in ujeedada socdaalkan ay ku yimaadeen dalka Itoobiya ay ku salaysan tahay aqoon u yeelashada federalismka nasiibna ay u yeesheen in nidaamka federalismka ay u soo khibrad doontaan deegaan walaaladooda dhammaantaan aqoon iyo waayaragnimo dheeraad oo u leh hirgelinta nidaamka federalismka waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano qaababka kala duwan ee federaaleynta gaar ahaan hanaanka dawladeed ee dalka Ethiopia hanaanka fiscal federalism loo yaqaano ee canshuur ururinta iyo dakhliga hanaanka ugu ballaaran aan aad u rajeynayno oo administrative federalism ka leeyahay dawladda Ethiopia ay safka hore uga jirto 28 dawladeed ee federaalka qaatay ee adduunka waxa xaqiiqo ah insha Allah inaan dawlad goboleedka Soomaalida Ethiopia oo aan marti u nahay 3 maalmood soo socoto inaan aad uga faa'iideysan doono waxaan uga mahad celinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan leh ee afayeenka baarlamaanka iyo مسؤولين تكره وهركعوا أي ناس دولة جمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا يا كمية ودمada guulaha ku dayashada leh ka soo hooyay hab nidaamyeedka maamul ee federalism ka taasi oo dhabada u xaadeen isbedel dhaqaale oo xawliya wadanka Itoobiya ku talaabsana sanadihii la soo dhaafay isla mar ahaantaasina waxa nidaamka federalismka ee dawladda Itoobiya hirgelisay uu didibada u taagay xiriirka gaamuray ee dalalka dariska qaaradda iyo caalamka kalaba kala dhaxeeya dalkan Itoobiya